aniga aabaha ayaan ahay aabahana waa aniga Okay. ama ugu yaraan rumaysta Hadayna noo dejiso samaan ustaado aniga meega layga qaatay anaa watay isugade sababtaasi daraadeeda ayaa mucjizaad maxaan ku yiraahdaa mucjizaadka aniga aan sameeyo iyo arrimaha aniga aan sameeyo xataa ma ku garan weydeen buu leeyahay ustaadi waa mahadsan tahay caqiidatu daxaawiya waxa uu ka hadlaayo ma aha wax oo mustaxiil ah lama fahmi karo laa tudriku al-afham wala tabliqu al-awham hayyun la yanaam markuu ilaahay sifaynay daatada ilaahay waay daatada ilaahay sida ay tahay waxaan ka hadlaynaa maxay tahay soo ilaahay Soomaa وكاد أستاذي أستاذ هذا وحير إنا الله ربع من فضلك ذات إلهي وحي وكليه هاي لا تدركه الأوهام وهم اللي جمها ليلي كرو يفهم أما ما أوصل لين عقل اللي جمها جرا كرو تهذا كلاته إمام الطحاوي ما عن هذا الكيس آيات قرآن وين فهمت أيضا نفتر كذا وفهم كواب عقلك شقدي سومها يعني واحد قرر عنا ما يا أستاذي سيدا اسمعان فهم كاجا عقلك الله بيكليهين waxaad fahmi kartaa wax qaldan waxaana fahmi kartaa wax saxan ama aqligu marna ma qaldami karo aqligu shayga mumkinka waa mumkin shayga mustaxiilkana waa mustaxiil marka hadda qormadan aad ii sheegtay hal mar iga raali ah waa radina markaan radiyo qormo ayada la mid oo ka darna ku sheega waana kugu qaadanaa midaan logically hadii la soo hordhigo way ku fashilmay way ku dhacday haduu dhiila aabaha igu dhex jiro aniga doodanba ma ka keeni lahaynba oo waxaan dhiila aabaha aw uu ku dhex jiraa لكن إنه يراهدو أباها يقول حجرة من نفس الوقت أنا أباها يقول حجرة هذا شيء لا يمكن هو مستحيل عقلا وحير لوجيك أو جبه يواي هذه أنقوله أنا جوري عن كجرة جوري أنا جورا من نفس الوقت وحصور تقل أهمها مركا عقلا مركا لو بندقو أو شيء مستحيل وأفرجيس أو اسكو وقت جالس الناس تحجيس ما دعي كروا شيء مستحيل كصوتك مركا دبا ما بالهم وكو سلمي waxaan kuugu salimaa ciise wuxuu leeyahay isla kitaabkan aad noo aqrinayso 14 qormadiisa 20aad ustaad najibo noo aqri tan marka ka jawaab insha Allah kitaabka Yuhanna cutubka 14aad qormadiisa 20aad okay qormadana ba ka daranba hadda adiga ma rumaysantaa ina ciise ku dhex jirto adaad ciise miyaa ku dhex jirtaa ustaado ciise wuxuu leeyahay waxaad gara doontaan inaan anigu aabaha ku jiro aabuhuna igu jiro idinkuna aad igu jirtaan anna aan idinku jiro hadda marka anaga ciise maan ku dhex jirnaa gudaha ciise markaa jawaab ayadaas ayada ka dambaysa tahay bible in hal aayad la soo qaato oo la jaro ma aha ayada ka dambayso ma yaqbal wasaayo aniga caawa hal aayada i weydiisay waana kaaga jawaabayo qofki aniga quraanka hal aayad soo maada weydiinin ustaad dhageyso qofki aniga hatta waa ku xiri kartaa aayadaha kale kuma aanan diidin qofki aayadaas aayada ka dambaysa fasirayso waxay leedahay ayay noo sheeg sida aniga i aqbala oo wasaayaadkayga iyo dardaarankayga maxaan ku radaa sameeya kaasi waa ijecel yahay ki ijecel maxaan ku radaa ki aniga ijecelna aabahayga ayuu jecel yahay anna asaga waan jecelahay waa isku dhamaatay waa fasiran tahay Soomaa marka tafsiirka aayadana jacayl ya dhex ku jiro baa laga hadlayaa ustaad jacaylkaas fasir jacaylkaas waxa laga hadlayaa habareer ma noo kaadisid may wax yar wallahi waa saacad habareer muslimiinta dhan way aamusan yihiin soo maarkoosid de hoosta waxa la isoo qoray arkimaysid habareer muslimiinta dhan way aamusan masiixa marka hadalkaasi uu lahaa maxaan ku iraahdaa okay aniga hada su'aashan ku weydiinaa jirkaasi maxabbu ka hadlay aayada ka dambaysa uu sheegay jacayl buu ka hadlay fiiri aayada ka dambaysa inay aayada koobaad fasiraysa adiga ma noo sheegay mise bible-ka noo sheegay bible-ka sheegay waa isku bible-ka miyaa wuxuu leeyahay aayadan hadda waxay fasiray aayadii ka horreysay bible-ka miyaa sidaas dhahay الوعد بإرسال الروح القدس موضوع أتكهد ليسو وحعنوانه محاكو إرادايا بلنقاتك محاكو إرادايا روح القدس كإن محاكو إرادايا إن لصوتري دونه أيا عنوانه waxaa laga hadlaayo oo dadkan xiriirinayo oo isku xiraayana maxaan ku iraadahay in dad yaana ku dhihina in waxa uu ka hadlayo masiixa oo isku xirkan uu sheegay inuu ruuxa quduuska oo anaga naga dhex shaqeynaa okay waa ku fahmay ayadana waa kaaga gudba habar yar noo kaad maasha yani waxa weeyaan waa malaa'ikta labada garab saaran islaamku waxay aaminsan yihiin in yani acmaalkooda ilaahay u geyso amaalay ma noo kaadi sida habar yaray laba qof laba nin oo ragaan nahay kamaalo adigana xaqli soo jeed anima ii jeed aanadi
أيد أوكي خلاص إيد بالعيني اثنين يلا. وايا أستاذي hadda marka waxaan rumaysan tahay ciise inuu ilaahay ku jiro ilaahayna ciise ku jiro soo sidaas ma ahan wax inuu ku jiritaan ma aha inay mid yihiin baan rumaysanahay walaalle mid ma ahan waxayse mid ku ahayn waa mid hal xabay isku yihiin miya haye waxaa noo akhrisaa majiidow kutubka falimaan rasuulada cutubka shanaad qormadiisa dhowr iyo 17 miya ama 56 noo akhri cutubka falimaan rasuulada kitaabka 7 qormadiisa 57 noo akhri hadda hal mid ay isku yihiin aad leedahay anigana waxaan ku dhooyaa labay kala yihiin 756 noo akhri falimaan rasuulada 56 okay wiilka aadanaha oo taagan midigta ilaahay haye hal mid ay isku yihiin marka hadda mase waa isdhinac joogaan dhegeyso waxa laga hadlayaa maxaan ku yiraahdaa midigta ilaahay fadhiya adiga waxa ku wareertay maxaan ku yiraahdaa jirka iyo maxaan ku yiraahdaa iyo ruuxda jir ma ka sheekeynayo walaalkay waxa meesha fadhiya la sheegay ciise waxa igu tiri maya dhegeyso ilaahay halay isku yihiin abuu masiixa waa inuu sarakacay waa isku raacsanahay sax ama hal la dilo ama maxaan ku yiraahdaa ama yaan la dilin waa rumaysanahay hadi qadiya uqraasa maya midigta ilaahay waxa fadhiya la sheegayo waxa laga hadlayaa waa jirka ama ruuxa waaxid waa jirkaas yaa iskale jirka masiixa waxa laga hadlayo okay jirka masiixa wuxuu fadhiyaa midigta ilaahay soo maahan okay markaas jirkaas masiixa ma ku dhex jiraa mise uu iska siiba sida dharka isaga siibay hadda maxaa su'aalaha ay weydiinaysa qaabkooda kamaalow shweeyo علشان adiga waxa tir moogtaa jirka masiixa way waxa ilaahay dhinaciisa fadhiyo dhageyso waxa midaysan waxa midaysan oo laga hadlaayo waa ruuxda okay ilaahay ruuxu leeyahay miya ya waxa laga hadlaayo waa jawharta waxa laga hadlaayo waxa midaysan adiga ilaah kuma u taqaana horta هذه قد يقرأ إلهي الروح ميوليه أكتاذا ما أدي ما أتقانا إلهي ما هذا السؤال شان كويديها كبودين اللي عاود ما يسؤال بودين ما هذا واحد السؤال اللي بعده واجر ما واحد ربتي محاوك هذا إلهي أنا أركته إلهي أنا أركت مية ربتي بيبلك إلهي صلى إلهي جرلي أو محاوك هذا يميل سو تاجن أو الأركاي مية محاوك هذا إلهي أتقاني بيبلك بس إذا ساكو قرنه هي حاجة قرنتها هي كتاب كزبور الدين نوقل ماجدو قرمدة الطبن اللحات وحاد كب الله وضع شن كب الله ما يسبور الدي عتب كطبن اللحات قرمدي سشانات كب الله ولا لك ما بقى جاب إلهي إنه جروين ليه أو بيبل كان أو شيء مركا كماله يا هلا أبري يرمى نوكا دي سكان الله كسيه habaryaro waxay rnoo kaan alla kamaalo aniga caaw maxaa iga boodboodaysa miirka rabaa habaryaro laba qof aan sheekaysanayna ma fahamta markuu ila sheekaysanay waa aamusnayd markaan la sheekaysanay maxay u soo dhex galgaloosaa way 18 aakhir ustaado 18 sabuuradii 18 ma joogtaa cutubka lixaad ka bilow qormada lixaad ka bilow walaalka hadda wuxuu yiri ilaahay ma la arki karo oo jir ma ahan baybalkan wuxuu leeyahay ilaahay waa la arki karaa ku soco marka okay ilaahay dhagow leeyahay ko haye okay waa mahadsanta okay walaalka hadda wuxuu yiri ilaahay lama arki karo oo ruux waaye baybalkan wuxuu noo sheegayaa ilaahay markuu xanaaqay sanko qaaq ka sii daayay afkana dabaa ka shidmay calaashan dhuxul meesha tiilayna way shidmatay kadibna wuu soo degtay naagti jannada baalasheedu soo koray xanaaq dartiis dhulka dhamow gilgilay mugdigana wuu ku dhuuntay samooyinkana wuu soo foorariyey marka ustaadii baybalka wuxuu noo sheegayaa ilaahay horta inuu dhaga leeyahay oo wax ku maqlo qaylada markuu xanaaqana sanka oo qiiq ka sii daayo afkana dhuxul ka keeno oo naagta jannadana oo fuulay oo ku biibay marka cagana wuu leeyahay marka adigana waxaa tiri ilaahay maxaa la yidhaha jismi ma ahan kitaabkii kaleeto oo falimaan rasuulada
يعني cutubkii toddobaad qormadiisa 56 nabi ciise ayaa ilaahay ag fadhiistay okay su'aashaydu marka waxay tahay hadda waxaan soo cadeeyay inuu ilaahay jismi yahay ilaaha bibalka inuu jismi yahay ciisana uu ag fadhiyo hadda marka ma rumaysatay inay jiraan laba shay oo is ag fadhiya oo laba jismi ah bibalkana ku qoran mise waa diidan tahay haddaad diidan tahay qormada amaal ku soco almar haddii aad diidaan qormada aad ku diideen oo bibalka ku jirta isiya hadday qormadaas ka hor imaato qormadaana labadiina qormo way iska hor imaaneen kitaab iska hor imaanayana kitaab ma dhihi karo wuu yahay xataa haddii la dhaho laakiin anigu ma dhihi karo sababtoo hadalka ilaahay iskama hor imaado kow haddii aad qormo aad weysiin fahamkiina iyo tafsiirkiina iska hor imaad ma hadda ka tusinayso ma kaaga maya waxba igama aadan tusin hal xaba xataa igama aadan tusin hadalkayga ma dhameeyo waxaa ku wareegatay maxaan ku yiraahdaa hadalkayga ma dhameystaa waxaa ku wareegatay adigoo maadsan hadalka ma idiin soo dhiga mayga habar waa ku soo dhiga maqlayna tafadal ha waa maadsan tabar hal daqiiqan kuugu soo kooba walaalka wuxuu dhahay adigana ay tiri ilaahay ruux waa lama arko kooda ruuxu yiri ciisa ilaahay ku dhex jira ilaahayna ciisa ku dhex jira waxaan iri logical waa shay qalad ah waa anigoo ku iri gurigan ku jira gurigan anigoo ugu jira haddana walaalkay waa u sallimay waxaan iri waa kugu qaatay xataa ayadoo xeer caqli aan jabinayno ilaahay caqli lagu ma fahmi karo iri waa ka yeelay haddana waxaan u keenay qormo dhahayo ciise idinka idinku jira hal mar abar yar yeelay ma ahaday ku qoran tahay la tudri hal mar abar yar ma dhameeyo hadalkayga halkii daqiiqo hadii adigu wax dhaliilayso abar yar halkayga daqiiqo ma dhameystaa anaa meega ku siinaa si toos aad u qaadanay dhahay may kamaalo kitaab abar yar markaan ku dhameeyo fiiri amalay markaan ku dhameeyo abar yar aan is dhageysan adigoo mahadsan markaan ku dhameeyo qaado hal daqiiqo la codsaday hadalkayga dhamaan ku soo koobi raba kadib markaas ta'wiilkaaga waa dhageysana marka waxaan u keenay qormo dhahayso ciise oo dhahayo anigana ilaahayaan ku jira ilaahayna anigoo ugu jira idinkana waa igu jirtiin anna idinkaan idinku jira Yohana 14:20 markaas wuxuu yiri wuxuu ku fasiray jacaylka aayadda kala fasirayso yiri ayadana waa u sallimay waa ka gudubnay waxaan u keenay ciise oo ilaahay dhinaciisa fadhiyo wuxuu yiri ciise maana waa jirkiisa waa jirkii oo ku yimid waa okay oo ilaahay soo jirma ilaahay jirma aanu yiri hadda waxaan keenay ilaahay oo jir ah oo bibalka ku qoran marka habar yar waxaan ka rabaa laba arin midood qormo oo su'aash warka aad ku doodaysiin qabto bibalka iga siiya hadda bibalka iga siisaan oo qormadana ay ka hor timaado waa laba qormo oo iska soo horjeedo laba qormo iska soo horjeedo hadii bibalka laga helana oo si toos isaga soo horjeedo tusaale kac iyo fadhiiso oo kale waa laba shay iska soo horjeedo shaygaas wax ilaahay ka yimid ma aanan dhahaynaa haddii aad laga waayeyna tan qaadanayna qormadaan aan qaadana ra'yigiina waa idinku ixtiraama waa ka baxay soo dhawo amalay abram ku soco kitaabki daawud zabuur buu ka hadlay maxaan ku yiraahdaa mar walba waxaa ogaataa maxaan ku yiraahdaa ninka la yiraahdo kamaal ilaahay inaanu annaga nala mid ahayn oo bijamiic sifaatihi in annaga oo kale aan ahayn haddii daawud uu yiri dhegihiisu ku maqlay maxaan ku yiraahdaa ma aha jirka adiga aad taqaanid iyo waxa adiga aad xadidaysid oo aad arkaysid maxaa yeelay ilaahay xuduudaba asaa abuuray oo maxaan ku yiraahdaa kaa'inaadkana asaa abuuray marka ha ku fekerin waxa maxaan ku yiraahdaa daawud uu ku hadlaayo sida adiga fahamkaaga uu yahay iyo dhegaha adiga aad taqaanid sida qur'aankaba uu leeyahay laysa kamithlihi shay'un wax ilaahay la mid ah malaha taas waa wax fudud ka jawaabideedu ma aha maxaan ku yiraahdaa micnaheeduna ma aha mutajassid oo sidii annagoo kale maxaan ku yiraahdaa dhegale gacmale maxaan ku yiraahdaa afle ma aha waa garataan u malaynaa taasi marka kumaba dheeraanayaba intaasaa kaga baxaa wax walba waxaan ku yiraahdaa aan u dhaafayna ilaahay kan uu yahay marba la mid ma aha maxaan ku yiraahdaa basharka iyo bini'aadanka iyo inta adiga aad taqaanid oo dhan waa ka duwan yahay laakiin hadda soo ma dhahaynin ciise soo ma dhahin kii aniga ay arkay ilaahay oo arkay ciise ilaahay marka soo isku mid ma ahan aniga waxaan rumaysanahay ciise oo jir ku yimid ilaah oo jir ku yimid oo dadka u muuqday waaye oo maxaan ku yiraahdaa dadka dhex yimid qofka aniga ilaah buu arkay wuxuu u leeyahay waa sababtaasi ma aha
maxaan ku yidhahdaa ilaahay annaga ma arki karno ciise ilaahay yaa maxaan soo ku diray yidhahdaa dhowr jeer kitaabka maxaan ku yidhahdaa bibleka ustaadoo dhibaatada haysato walaalaha oo markoodii hore backgroundka islaamiga ah dhibaatada haysato waxa waaye igana raalli ahaw waxay isku qasaan islaamka iyo kiristaanka laysa kamithlihi shay-un markaa leedahay iyo wax xadaynaya male markaad leedahay cidda akalos allah waaye ee kaaga ma ahan kaaga xadow leeyahay inuu xalleeya waxaa u daliila habar yar ii kaadi dee habar yar markaan qaata maxaa u soo boode markaan dhammaysta qaada habar yar anaa kaaga baxay waa kaaga baxay habar yar waa kaaga baxay markaan ku siiyey walaalkaad siisay marka walaalkii dhammaystoon qaatay oon damca inaa hadlana waa igu qabsatay min fadlaki habar yar okay aan dhammeeyo marka walaalkay adiga ilaaha oo bibalka hadda aan ku arkoono waa shay muxadid ah oo ama wax koobayaan laakiin kan leeyahay laysa kamithlihi shay-un walaa yuxiiduuna bihi cilma kan leeyahay waa kan islaamka marka in la isku qaasa ma ahan midkan waxaa xadidayo shaygii oo saaraa shayu fuulay kuree baa la yidhaha luqa alcarabi waa baari kartaa naagtii jannado haddana bibalkana leeyahay ou koray okay wayna la duushay markaas ay la duulayso meelna wuu ka maqan yahay meelna waa la marsiinaa meesha lagula dhex duulaya ayaa ka weyn markuu ciise ku dhex jirana shay weyn ma dhex geli karo wax yar maroodi ma dhex geli karo dhalada goojada sababtoo ah maroodiga wuxuu ka weyn yahay dhalada waxa waaye dood maaha marka ustaad maya dood haddaysan quraan saar miya maya dood ma aha dood ma doodeedii leeba xoojinayo soo dhegeyso ilaahay horta ilaahay awood ma u leeyahay maxaan ku yidhahdaa in maxaan ku yidhahdaa wuxuu doono ma samayn karaa ma u leeyahay wuxuu doono ma samayn karo wuxuu doono waxyaabaha mustaxiilaadka ilaahay ma iska baxay marka fiiri hadda marka maxaan ku yidhahdaa ilaahay wax kasta ma samayn karaa ya ilaahay wax kasta ma samayn karaa adiga wixii uu doono wixii uu doono uu samayn karaa soo maahan hadduu doono ma isdili karaa kow ma iska sii karaa maya wixii uu doono uu samayn karaa haddii uu doonaan ku iri ma isdili karaa ilaahay wuxuu doono inuu samayn karaan kugu caddaynaa ani calaashaan ilaahay wuxuu doono markaad tiraa waa kulliye waa qaacido kulliye ah haddii uu doono wuu isbaabi'i karaa gibigiis eber uu iska dhigi karaa soo ma ahan sidaas hadalkaaga ka dhalanayo dhegeyso soo mustaxiil kama aha walaal ilaahay horta dhimasho soo mustaxiil kama mustaxiil laakiin in maxaa ku yidhahdaa uu jir u qaato xataa bibalka saasuu ku leeyahay moogta ma inuu jir qaato maxaa mustaxiil ka dhigaya marka ii sheeg su-aal aad iyo aad u macaan waayo ustaad hadda ma kaaga jawaabaa marka wallahi billaah ilaahan ku dhaarta qalbi daacadahan kaaga jawaaba waa su-aal aad iyo aad u habboon okay ilaahay soo kama aaminsanid walaal maadaama background islaamiya aad leedahay soo ilaahay kama aaminsanid inuu awal iyo aakhir yahay bilow iyo dhammaad inuusan lahayn soo kama aaminsanid yes okay soo ilaahay kama aaminsanid maxaa la yidhaahdaa inuu qadiim azaliya yahay weligiis jirina doono yes okay shayga qadiimka ah walaalkay falaasifadii gariiga ayaa waxay ku doodi jireen adduunyada waa qadiim maanta si fiican su-aal fiican oo waadixad i weydiisay si fiican oo daacadnimo leh oo aan ku faraxsanan kaaga jawaabaa marka oo ixtiraamna ku dheehan falaasifadii gariiga waxay ku doodi jireen adduunyadan aan ku noolnahay waxay leedahay waa azali waa qadiim male bilow iyo dhammaad maanta mulxidiin joogta qayb ka midana way isku dayaan inay arrintaas sugaan waxaa soo baxay falaasifadii muslimiinta oo qaab caqli ah shubahadooda u buriyey okay adduunyada markaas kadib aan ilaahay fahmaynaa fiiriya haddii adduunyadan maanta way isbedbedelayso ma ahan ya habeenaa imaanaya maalina imaanayso soo sidaa ma ahan waa sidaa okay shayga qadiimka ah walaalkay isma bedeli karo shayga qadiimka hadduu isbedelo oo sidii uu ahaa uu iska bedelo qadiimnimadiisii aa dhammaatay haddii qadiimnimada ilaahay ay dhammaato ama shay qadiimnimo oo aan qadiimnimadii u sugnayd haddii la waayo ilaah ma noqon karo okay marka si fiican oo mandiq ah aan kugu fahamsiinaa tusaale shaygan baraf aan kugu fahamsiinaa tusaale ama shay qabow shaygan qabow waxaan dhahaynaa qabowga shaygan bilowna male dhammaadna male maxaa la rabaa marka maanta oo dhan inuu qabow ahaado soo lama rabo weligiis inuu qabow ahaadaa la rabaa soo maaha haddaan dhahno qabowgan uu qadiim ku yahay haddaan dhahno soo lama rabo weligiis inuu sidaa u qaboobaado ma ani kaama jibinaya wada adig dhamaysa hadalka ka bax inay ifahamtaan rabaa dee
ma aha inaan ku gaadooyo hadda waxaan isla fahamsannahay may isku kama waafaqsannahay gaad ayaan jirta ku xitaa waadixinoyaa shuyuuqdii islaamkaa joogto 3 qof baa daawanaysa very sad weeyaan shashadan oo garaaca walaalaha kala imaadaan de meesha caawa dood wanay kullaataa ya maya yeesan naga kulaanin sheekuna qaab qabuule aan ku wadanayna ustaad hal mid aan kuu sheegaa hadda markii aan qadiyad aan isku waafaqsannahay aan ka wada hadlayno ma aha marka bareega la kala gelayo ama dib u gurashada la kala gelayo ma ahan waxa aan isku khilaafsannahay markii la joogo aan isku adkayno laakiin shay aan isku waafaqsannahay markaan ka hadlayno waa inaanaan isku adkayna si caadi oo daacadnimo uga wada hadalnaa hadda markii doodaha waaweyn oo caalamiga adduunka ka dhaco markay doodayaan mulxidiinta islaamka iyo kiristaanka iyo yahuudda dadka aaminaada leh hal dhinacay ka soo wada jeedaan doodana way ka wada qayb qaataan ma aqaan inaa ogtihiin iyo in kale dad marka annaga iyo idinku anoo aan kaa dhex galo hooye macaan walaashay macaan wiilkiidii ma ogoshahay diintan hadda catholic ee keena lagu leeyahay ibraahimiya waxaan hadda ay wareejinayaan islaamka muxuu ka qabaa kamaalo habar yar waa su-aal kale hadda waxaa su-aal ka muhiimsan ilaahay inuu jir kasta maxaa u diidaayo may taas waa ayaan rabaa hadlayna inaan isla fahmno okay taasaa ka najiibtaas muhiimsan adaan kuu maadana dhiibay waa kaaga jawaaba ilaahay idankii marxaba marxaba waa ballan marka ma wadnaa oo ma kuu sheegaa dhibaatada ka dhalanaysa haddaan dhahna ilaahay jir soo qaata ku soco dhamaysaha ha marka su-aalaha aan ku weydiina waa inaan isaga jawaabnaa maaha aniga dabin kulama maagani alle waa isla aaminsannaha qadiimnimadiisana waa isla aaminsannaha haddii la dhaho marka allah jir soo gashtay qadiimnimada qaabkii qadka uga baxaysaan rabaa inaan ku fahamsiiyo marka okay shaygan qabow haddaan dhahno qabowgan ayuu qadiim ku yahay waa inuu weligii qaboobaado soo ma ahan ha waa sax okay haddii uu kululaado shaygaas oo isbeddel uu ku yimaado qadiimnimadiisii wuu ka baxay sidoo uga baxay shaygan qabow marka uu kululaado wuxuu yeelanaa bardhammaad waxaa dhammaaday qabowgii wuxuu kaloo yeelanaa barbilaaw oo waxaa u bilowday kulayl sidaa darteed shaygaas isbeddelka ku dhacay ayaa wuxuu u diidaa inuu qadiim noqdo weligiis jiro sidaa darteed marka shayga qadiimka ah waa inuusan isbedelin baybalkana way ku taallaa ilaahay isma bedelo waana kaa sii doonaa insha allah okay waa qadiim ilaahay marka haddii aan dhahno maalinta sabtida ah waa qadiim tusaale haddii maalinta sabtida aan dhahno waa qadiim sabtidaas waxaa la rabaa inaysan dhammaanin hadday sabtida dhammaato oo ay axad bilaabato sabtigu qadiim ma ahan sababtoo ah way dhammaatay dhammaaday yeelatay haddana maxaa u bilowday maalin kaloo cusubaa bilaabatay sidaa darteed haddiiba shaygii isbedelayo qadiim ma noqon karo ama azali ma noqon karo ilaahay subxaanahu watacaala jala sha'nuhu wacama nawaali walaa ilaaha gayruhu xawaadiista kuma qumaan haddii marka ilaahay subxaanahu watacaala aad dhahdo jirow soo gashtay sidii markii hore uu ahaa ayuu maanta iska bedelay haddaad dhahdo isbedelkaas wuxuu yeelanaa bardhammaad oo waxaa u dhammaaday xaaladii hore markii hore ku sugnaa haddana waxaa u bilaabatay xaalad cusub oo dhar soo gashtay sidaa darteed marka shay oo xaalad isbedel ah ku dhacaayo ma noqon karo qadiim marka ilaahay isma bedelo intaas hadda ma isku fahamna beebelkana waa kaa sii karaa walaalkay haddaad jeclaysato insha allah hay ka keen bible sababtaan u diidaayo oo aan ku dhahaya marka ilaahay subxaanahu watacaala jir ma ahan waa sidaas ustaad waxa ay akhrisaa kitaabka ayuub allahu almustacaan cutubka 26 qormadiisa 36 ama 36 26 ustaad maajid iyo akhri bible ka maxaa tiri yacquub aan ku yiri ustaad iska dhaaftan ayuub yacquub kow 17 habar yar haye waa la hadlaa insha allah yacquub kow 17 ma qabtaanba 17 akhri kitaabka yacquub kow 17 oo isagu isma bedelo nacam marka ani ma jawaabaa ma anaa jawaaba habar yaray jawaab maaha waxbaa la sharaxaya su-aal kuma ana weydiin habar yar aboo kamaal adiga caawo inaa hadalba ii diidan tahay xaq kugu dhacay war habar yar kuma diidinayso hadal waxaan dhahaa ninkan waa shiikh yani culumta yani islaamka yaqaana iyo hadal afka ay xiran hay yar markii jaanis la siiyo ma hadlayso dhibaatada jirtaa waxay tahay hadal hadda muudka ka bax hadal kitaabka yacquub cutubka koobaad qormadiisa 17 wuxuuna leeyahay ilaahay isma bedelo
ilaaha daa'imka ah isagu isma bedelo waa sax sababtoo ah waa qadiim shayga hadduu isbedelo qadiimnimadiisi ayaa dhammaanayso wuxuu yeelanaa dhammaad iyo hadda adaa ku darsanaya ma ogtahay suugaysanaya cusbaysanaya aayadantii hore keliyay dhahday intaa kale jawaabkaaga maya inta waxaa kaloo ogaataa fiiri adiga maxaan ku yidhahdaa kelimadda ilaahay iyo ruuxda ilaahay waxa azaliga ahaa iyo waxaa isku qaldaysaa jirkan maryamo ka dhashay ayaa maxaan ku yidhahdaa walaal aniga jirka maryamo ka dhashay ilaah maba waa aqaanba fiiri jirka maryamo ka dhashay anigu ilaah maba waa aqaanba adiga waxaa igu tiri waay ilaahay inuu jir bani aadam soo qaato maxaa diidaayo markaa sidaa igu tiriya waxaan ku yiri waxaa diidaayo qadiimnimadiisa qadka ka baxayso oo qadiim ma noqon karo sidoose u noqon karin caqliyan kuugu cadeeyay shayga qadiimka ah haddii waxba ma adan cadeyn kamaal wax aa cadaysay ma leh may waa dhihi kartaa wax cadaysay ma laha maba fahmin waxa adi maxaan ku yidhahdaa hadda aad daldalaysay maanta oo dhan maxaan ku yidhahdaa ilaahay maxaan ku dhahaa ilaahay shaygan waa qabow yahay qabowga iyo kuleelka khaaliqi abuuray waa qabow iyo kuleel se adiga maxaan ku yidhahdaa makhluuq khaaliqa inuu abuuro maxaa u daliila anaa sheekada hadda kor u raraayo asagaa abuuray maxaa u daliila wax walba asagaa abuuray maxaa u daliila oo ilaahay maxaan ku yidhahdaa inuu wax abuuray ma maxaan ku yidhahdaa maxaa u daliila taas dood ma ahan dee dood ma ahan taas kaalama doodayno maxaa u daliila walaal maxaan ku yidhahdaa adiga khaaliq iyo makhluuq fiiri aniga maya waxaan rabnaa wax maxaan ku yidhahdaa inaa naga dhaadhicisidaa waxa mithaal usoo qaadanaysid dhan waxaa kaa'inaad makhluuqa waa waxa aad ku mithaalaysidna waa khaaliq laba maya laba laysakama adiga ilaahay marka aa mithaala usoo maya doodihii mulxidiinta waxay la timid moogtaadi waxaa u doodaysaa si aan maxaan ku nin ahlul iimaan aan ahayn oo kale u doodaysaa oo maxaan ku dhahaa mulxid ah maxaa dhacay iimaanka caqli kuma dhisna miya maya iimaanka caqli waa ku dhisay laakiin ilaahay iyo maxaan ku yidhahdaa oo khaaliqa iyo makhluuq se maxaan ku yidhahdaa adiga aad hal miisaan u wada saaraysaa yaa ku yidhi hal miisaana wada saara hadda waxaaba miithaalka aad soo qaadanaysana waa noocaas okay shayga sidoo qadiim ku noqon kara hadduu isbedelaya ii sheeg marka waa qadiim asagaa sheegtay inuu qadiim yahay weligiisa jiray weligiisana jiri doona okay asaga bas le sheegtay yaad ku aaminta miyaa laakiin caqli ma haysa hadda dhibaatada ku haysato walaalkay waxa waaye adiga aaminaadaada maya waxba dhibana ma haystaniyo malaaxidada iyo waxaa la doodaysay la dood maxaan ku yidhahdaa fiir martiyaan kuunaa ma ilaan falaasifa iyo adilo maxaan ku yidhahdaa caqliga iyo waxa ku doodaysid waxay u egyihiin qof maxaan ku dhahay aan waxba rumaysnayn oo kale usada haddaa kaliga hadlaysa marka sideen u wada hadalnaa haddaanaan anaga hadli karin maanta o dhan ameega haystay mogta ku dhegeysanay haya hadda qaado waqtigaaga markaa soo dhigta isii okay yani ilaahay meesha waxa weeye ilaahay yani qaadir wax miyuu awoodaa nacam waa awoodaa yani qur'aanka wuxuu leeyahay kun fayakun isdilaabar yar ma awoodaa inuu isqarxiyo camal waye khalaas kamaal waa ka baxay su'aal idin weydiiye ma ka baxay habar yar mayda waxaan ka meaning I will give you time يعني لبا دقيقة يعني يعني كتابك وحوليه يكونوا قوامين بالقسط ولو على أنفسكم qofka marka uu doodayo waxa waa inuu horta cadaalad uu sameeyo oo uu san fiirin adiga maxaan ku yiraahdaa doodan ku adkaa ani maanta oo dhan waxa qolkayga joogto oo ixtiraamayo idin dhigeysanayay wax walba aad sheegtaan oo ina dhaxgal shawaya intaasi maxaan ku yiraahdaa ixtiraam waa iimaateen laakiin su'aalaha qaar waxa la yiraahdaa su'aalaha qaar kama jawaabayo aniga waxaan oga jawaabaynin ilaahay baa bay amray inaan ka jawaabin ilaahay baa bay amray inaan ka jawaabin سؤال والله انت كوغو امر استاذو سؤال كجوابين انا soo dhaxgalay كمال غورغاdan استاذ meesha kugu amr ma ii sheegi kartaa كمال سؤال weydiiha ka jawaabin ابراهيم qof baa maanta noo imaaday yani waa qof deef ah weeyaan wuxuu doonay adiga shaybaal adiga ku jiraan meeshu doon seexanaya marka كمال waa qof deef noo wuxuu doono maanta ha yiraahdo wala ma yaqaan macna male هور معاك ودا ديف نصعو كمال ما قاعد اسكال عاو حر شيء نجيب المريسين هذا ريكا نعم نجيب القسم يلا ديف ويان يعني تفضل يعني البيتنا ما فهمت خبر الديف ما هي يعني كمال ديف واتاي قصتا تاي دي اقل كينياتي سمح
قرقيني ضيف ميا اوكي على عيني والراس نعم ضيف مرتوى نعم inaad ilaada u moodo deefna deef waa booda filinay ku jirta ma fahamto marka waa yaaba habar yar waxa اهلا وسهلا هو مع habar waa mahadsantahay shukran lak aad u mahadsantahay walaalkay haddii la yiraahdo su'aal ma ka jawaabaya hadaa ay dhahdo ma kugu dirqinayo inaad ka jawaabto laakiin haddii aan su'aal ku weydiiyo haydhihin ima weydii kartid maya su'aalaha ma soconayaan moogtaa ustaado ma hadalkayga dhamaysta haddaad ba isiisay su'aalaha iska ma soconayaan maanta oran moogtaa ani sida laba su'aal aan ku weydiiyey su'aashii lixaad miya toddobaad hadda soomay gaymaadan siinin mana dhibsatay okay wax yar aan hadlo fiiri haddaad tiraahda ilaahay waa qadiim inuu qadiim yahay waa inaad caddayn u haysaa haddaa tiraahda ilaahay waa keligiis inuu keligiis yahay waa inaad caddayn u haysaa haddaa tiraahda waxbuu abuuray inuu wax abuuray waa inaad caddayn u haysaa haddii aad leedahay caddayn uma hayo ee sida mulxidiinta ay weydiinin aaminaadan ku koobanahay aniga adiga marka farqiyaa noo dhexeeyo anigu wax kasta oo aan aaminsanahay caddayn adilla caqli ah ayaan ku sugi karaa mana ka hor imaan karto caqliga sababtoo ah waa xaqiiqadu caqliga kama hor timaado ama shayga runta ah okay inta markii laga soo gudbo haddaa i tiraahda ilaahayaa qadiim ah dharowna soo gashtay oo jirow soo gashtay shaygaas jirka soo gashtay qadiim ma noqon karo awalan baybalkana wuu khilaafaa hadalkaas haddii aad baybalka keliya ku ekaano waree dhowkaada laakiin ma dhex baxayo wiilkan hadlaaya hadaladiisa oo aad walaal ii kaade farxiyo miya فرحية كمال waaye farxiyo manifesto abay muudka iga gal كمال war walaalayaal inaa hadla inoo geydiina saan yeelnaa marka laakiin hadallada uu ku hadlayo farxiyo manifesto abay wax yar ma u kaadisi manifesto كمالو بالله عليك habar yar muudka wax yar aan dhameeyo farxiyo manifesto abay muudka wax yar gal why you saying that manifesto hada waa magac wanaagsan anigu aqaan xamaaniga ma لا وخلط ويا شيء خلط ويا manifesto fasirkeeda ma taqaan habar yar ابو ادي كمال حقيقه habar fasirkeeda ma taqaan mise waa kuu sheegaa انا اخانا manifesto wanaagsan maaha ما معناها manifesto وفرحية فانت اوكله فرحية كوكو ما فرحية فانت ما habar ku hadlaysa su'aalo ma ka weydiiyaa waxaas ka baxa ku meelaysan hadalkayga markaan dhameeyo ayaa su'aalo horta ma la xanaaqsan